wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka dalkan Kenya iyo xildhibaanada kala socdaan ismaamulada dalkan Kenya ayaa soo gaareen deegaanka Dadaab. wafdiga ayaa halkaasi waxaa loogu soo dhaweeyay si heer sare waxaana isla markaasi loo ambabaxay xarada qaxootiga Ifalabo oo sanad ka hor la xiray. ujeedada wafdigan ayaa waxay ahayd bixin dhul loo qorsheeyay dawladda Garissa dadka Kenyaanka oo ku jira faraha qaxootiga in laga saaro. wafdigan ayaa mar labaad waxaa lagu soo dhaweeyay xarada qaxootiga Ifalabo. waxaana soo dhaweeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka iyo sidoo kale ardayda wax ka barata xiriyaha qaxootiga ee Dadaab iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. dhulka la bixiyay ayaa waxaa ka mid ah isbitaalo, iskuul iyo sidoo kale ceelal biyo. sidoo kale waxa ay booqdeen qaybo ka mid ah isbitaalka weyn ee xarada qaxootiga Ifalabo waxa ayna indheeyeen waxyaabaha halkaasi ku jiraan. wafdiga ayaa sheegay inay ka faa'iideysan doonaan mashruucan. ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadleen qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay ismaamulada kala duwan sida Dadaab, Faafi iyo sidoo kale ismaamulka Wajeer. xildhibaanadan ayaa dhowr qodob oo muhiim ah ka hadleen. sidan aan u joognaa bari waa waxaan iri hadduu nabi aadam uu soo baxo marka Wajeer South baan joogay xildhibaanka Wajeer South laga soo doortaanay ismaan kii sheegin ogaada Omar baa la yiraahdaa ama Maxamuud Omar baa la yiraahdaa ninkii maqlayo ana Wajeer South dhex jooga waxaan iri hadduu nabi aadam soo baxa maanta meel si fiican u xusuusan karo Wajeer South hadduu dhex maro. waxaan kala jeeda waxa weeye horumar iyo calankii la helay inaanan waxba aanan waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inaan idin hor joogno oon idin soo salaanay idin soo booqanay. taa waa xubin tan labaad waxa weeye waxaa farxad noo ah haddana inaan runtii aan joogno xerooyinka qaxootiga annaga oo doorbiday annaga oo doonayno inaan runtii aan idin muujino inaan garab idinnahay inaan idin garab taagannahay in xildhibaanadii aad soo doorateen iyo madaxdii aad soo doorateen aan nahay inaan idin soo booqanay insha Allah ta'ala. danka kale xildhibaaninta ayaa sheegeen in faraha qaxootiga dadka deegaanka galay in laga saaro. waxaan rabaa inaan idin sheego ina diraan dhiriyo howlaha xerooyinka intaanan ku laaban arrimaha faraha qaxootiga rabaa inaan idin sheegno. dood iyo dagaal iyo istaag iyo dhudhun iyo xoog intaba dhabarkan saaranay. waxaan u saaranayna waxaa weeye nin miskiin ah haddii uu baxo xabag hadduu doonto ilan xoolo uma xaraysno. hadduu nin intuu baxo xabag uu doonto uu reerkiisa u soo xamaalayo waxaa suurtagala inay xoolo u xaraysnayn. ninkaa isaga ayaa intuu soo baxay xabag ma doonan inay xarooyinka qaxootigu soo aaday in uu dadkiisii ku badbaadiyo. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka dalkan Kenya. I also want to take this opportunity to thank the host community, people of Dadaab and Fafi, for continuing to be courteous and to be able to host these refugees who have stayed here close to about 29-30 years. And what we want to do today, and through the Chief Administrative Secretary, is to enable the county government of Garissa to take the 2 camps that were closed. This exercise should have taken place about 2 years ago. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ay kula wareegeen waxyaabihii looga talagalay wafdigan. dhanka kale wafdiga ayaa u sii ambabaxay xerada Kambi House 2 sano ka hor la xiray 28 sano kadib. waa markii ugu horeysay dhul sidan oo kale lagu wareejiyay countiga Garissa. Xasan Kaafi, Badda As 24 TV, xeryaha qaxootiga Dadaab.